Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiin ah meel walba aad joogtaan iyo si walba ay inoo daawanaysaan waxaad kusoo dhawaataa muuqaal aan kaga hadli doono sida caadigan bah oo janaalka Gold TV waxaad kala socotaan subaxii wararka ugu weynaa suuqa ayaan idiin soo gudbinaa. Sheekooyinka wararka suuqa ugu weyn maanta magacyada dul saaran ama ku xidhan waa Grealish, Messi, Sterling, Pochettino, Coutinho, Kevin De Bruyne iyo ciyaaryahan Gareth Bale ayaana ka mid ah. Haddii aan ku horeyno sheekada koowaad, ciyaaryahanka kooxda Aston Villa Jack Grealish ayaa markaana quudareynaya iskaga hayaan kooxda Aston Villa wuxuuna dalabyo waaweyn oo ka helaya kooxaha magaalada Manchester ka dhisan Manchester United, Manchester City kuwaas oo aad u xiiseynaya ciyaaryahanka reer England ee Jack Grealish. Aflaasna jirkan ayaana ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican ee qalbada dhexe ka ciyaara horyaalka Premier League laakiin sheekada Telegraph waxay qoraysaa in Manchester United, Manchester City ay aad u xiiseynayaan balse san ayaa iyadana saaka warinaysa in ciyaaryahankan marka laga soo tago Manchester United, Manchester City wuxuu ay xiise u keenaya kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayuu xiise keenay ciyaaryahanka lagu magacaabo Grealish oo Aston Villa qadka dhexe ugu ciyaara. san ayaana maanta sheekadaas sii daawacay. Isla wararka Manchester City waxaa kamid ah Manchester City waxay markaan diyaar u tahay in lacagaha adduunka ay ku bixiso ciyaaryahanka reer Argentina iyo kooxda Barcelona Lionel Messi xilli ciyaareedka soo aadan si uu keento horyaalka Premier League ee dalka England. Xidigan 32 sano jirkan ayaana qorsheynaysa inay ka soo qaadato kooxda ka tirsan gobolka Catalonia ee Barcelona waana wararka ugu weynaa ee maalmihii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga la hadalhayay ciyaaryahan Lionel Messi inuu dalab ka helay kooxda Manchester City laakiin ay adag tahay inuu iskaga hayo kooxda Barcelona. Express ayaana maanta sheekadani daawacaysa. Silmada Manchester City ciyaaryahanka Raheem Sterling ayaa markaa aaminsan in dib ugu soo laaban karo tababarka kooxda isagoo raba in uu wajaho kulanka Real Madrid ay kooxda Manchester City la ciyaari doonto tartanka Champions League. Ciyaaryahankan ayaa aad u xiiseynaya shalaasanjida reer England inuu ka hor yimaado kooxda Real Madrid isagoo markaa matalaya kooxda Manchester City. Telegraph ayaana sheekadaasi qalinka saaka u qaadatay. Macalinka hore kooxda Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino ayaa markaan la sheegaya in xil ciyaareedka soo aadan uu qaban doono jagada macalinimo ee kooxda ka tirsan Old Trafford ee Manchester United-ka waxaa iminka nahaya macalinka lagu magacaabo Ole Gunnar Solskjaer laakiin wararka ee maanta itibaaxayso majalada lagu magacaabo Mirror waxay sheegaysaa Mauricio Pochettino inuu ku soo wajahayo xil ciyaareedka soo aadan uuna qaban doono majaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Barcelona ciyaaryahankeeda ee khadka dhexe ee reer Brazil Filipe Coutinho ayaa markaan loo ogolaan karaa inay iibsan karto kooxda kubadda cagta Bayern Munich kaasoo iminka amaha ugu jooga waxaa lagu qiimeynaya 77 milyan ayaa lagu qiimeynaya inkastoo uu xiise baan ka helaya kooxaha Premier League ka dhisan sida Manchester United iyo kooxdiisa hore ee Liverpool kuwaas oo aad u xiiseynaya adeega ciyaaryahanka in la soo sixdaan xidiga reer Brazil. Barcelona waxay dabacsan tahay ciyaaryahanka lacag waaliya ee ku iibsan maadaama lacag waaliya ay ugu soo qaadatay kooxda Barcelona balse ku fashilmay hanaankii garoonka Camp Nou inuu ku soo bandhigo waqtigii ama kubaddii qurxooneed uu ka heystay garoonka Anfield Road ee gobolka Merseyside-ka. geeska kalena haddii aan fiirina kooxda Manchester City ciyaaryahanka qadka dhexe Kevin De Bruyne ayaana markaan lasoo warinayaa inuu xiise ka helay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona maadaama ciyaaryahankan weli waxaa leeyahay kuma raaxaysanayo horyaalka Premier League ee kooxda Champions-ka ah ee Manchester City. Kevin De Bruyne ayaa kooxdan wuxuu ugu yimid cariga dalka Germany oo Wolfsburg ayuu ugu soo biiray 8 sano jirkan ayaa macquul tahay inuu kooxaha Real Madrid iyo Barcelona midkood ku biiro kooxaha ugu waaweyn adduunka. Sheekadan waxaa faahfaahsan saaka goal.com ayaana qoraysa. kooxda kubadda cagta Roma ayaana Manchester United waxay kala hadlaysaa in ay qiimo 17 milyan iskaga iibiso ciyaaryahanka markaan amaad Manchester kaga maqan Romana joogay Chris Smalling 30 sano jirkan oo ka ciyaara center back ama daafaca dhexe ayaana waqti fiican la qaadanaya waqti qurux badan horyaalka Serie A dalka Talyaaniga kooxda Gellerossi Roma. Express ayaana qoraysa Romana waxay rabtaa in si caadi u iibsatay ciyaaryahankan oo nagi ku sii ahaado garoonka ay ku ciyaartay Olympico ee kooxda kubadda cagta ee Roma. wararka kale ugu weyn maanta waxaa kamid ah Manchester United si lamid ah ciyaaryahankeeda ee weerarka Marcus Rashford ayaa markaan sheegay inuu wada hadal la qaadan doono wakiilkiisa si uu halkan campaign-ka soo socdo lacag fiican u siiyaan kooxda Manchester United haddii kalena uu tartan kale ka raadsado kooxda Manchester United. Marcus Rashford wuxuu la heshiin doonaa wakiilkiisa caanka ama wakiilkiisa ayuuna la hadli doonaa ciyaaryahan Marcus Rashford. Mirror ayaana sheekadaasi daabacaysa. kuwaas waxay ahaayeen daawadayaal wararka ugu weynaa suuqa kala iibsiga. haddii aad janaalkan ku cusub tahay subscribe, like iyo share hanaga ilaa wad baasantiin la socodka warkayna.